kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xog waran iyo maanta waa maalimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha 9 sanadka 2020 qodobada wararka warkeena maanta aan ugu haynana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay kulan xalay Muqdisho ku dhaxmaray madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe madaxweynaha Galmudug kulan la qaatay wasiiro iyo taliyaal ciidan madasha xisbiyada qaran oo war ka soo saartay shirka madaxweyne Farmaajo iyo madaxda labada maamul goboleed uga furmaya Muqdisho madaxweynaha maamulka Puntland oo la kulmay wasiiro ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi guddiga doorashooyinka Puntland oo taageero ka dalbaday beesha caalamka khilaaf xoogan oo hareeyay doorashooyinka dalka Itoobiya dalkii ugu horeeyay Afrikaan ah oo ay u adeegsanaya baaritaanka qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal barnaamijkeena xog waran maanta intaan ku jirno uga boga doontaan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran subscribe saar channelka kambalkan riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe mahadsanid aan ku bilaabay kulan saacado badan qaatay ee magaalada Muqdisho waxa uu xalay ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe kulankan ayaa yimid kadib markii saacadihii la soo dhaafay xubnaha beesha caalamka ay xoogga saareen sidii kulanka u dhici lahaa waxyaabaha kulanka looga hadlay ayaa waxa ugu muhiimsanaa sidii uu furmi lahaa shirka saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya madaxweynaha Jubbaland Puntland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo arrinta gobolka Gado ilo waraadiyo muhiim ah ayaa waxay xaqiijiyeen in labada hogaamiye ay wada gaareen isfaham hordhac iyagoona u saaray ku dihmin hal xubnood oo ka shaqeeya qaab farsamo ee xal looga gaari lahaa arrinta gobolka Gado maanta ayaa waxaa lagu wadaa inuu furmo shirka Puntland iyo Jubbaland iyo madaxweyne Farmaajo maamulka Jubbaland iyo hore waxa uu shuruud ugu xiray ka qaybgalka shirkaasi kaasi oo ahaa in ciidamada dawladdu ay geysay gobolka Gado laga soo saaro balse hadda waxa ay u muuqataa in la isku soo dhawaaday madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo waftigiisa oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa dalka Djibouti ayaa waxay kulan la qaateen wasiirada wasaaradaha amniga arrimaha gudaha iyo taliyaasha ciidamada dalka Djibouti kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray amniga sidii ciidamada hil walaal ee dalka Djibouti ee jooga Soomaaliya iyo kuwa Galmudug iskaga kaashan lahaayeen hawlgallada laga hortagayo dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo in dowladda Djibouti ay sii xoojiso taageerada ay siiso maamulka Galmudug kulankan ayaa waxaa ku weeriyay madaxweyne Qoorqoor wasiirada amniga iyo arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug waxaana ay sheegeen inay wada shaqeyn wanaagsan ay dhaxmari doonto Djibouti iyo maamulka Galmudug madaxweyne Qoorqoor ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaatay gudoomiyaha deegaanka dalka Djibouti oo uu kala hadlay dhismaha deegaanka weyn ee magaalada Hobyo ee gobolka Mudug madasha xisbiyada qaran ayaa war ka soo saartay shirka madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleed uga furmaya Muqdisho war qoraal oo kor dhaweyd ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ee uu hogaamiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa lagu soo dhaweeyay in looga heshiiyo hanaanka doorashooyinka dalka madasha xisbiyada qaran ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in shirka ballabalaariyo kana soo qayb galaan dhammaan maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya warkani ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale lagu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inay la yimaadaan isku tanaasul una dhimriyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed halka wali laga socotaan warbaahinta xog waran wararka kala ah waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kula xubnaha maamulka Puntland ku metela koliyaasha dowladda federaalka ee Soomaaliya kulankan ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu warbixiyay xubnaha uu la kulmay xaaladda guud ee maamulka Puntland gaar ahaan marxaladda doorashada ee dalku marayo iyo dadaalka ay Puntland ugu jirto inay qabsoonto doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda xubnaha golaha wasiirada ee uu la kulmay madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxaa kamid ah sihayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda iyo xubno kale madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa intii uu joogay magaalada Muqdisho waxa uu la kulmay senatarada aqalka sare madasha xisbiyada qaran isagoona kala hadlay arrimo ay kamid yihiin doorashooyinka dalka dhinaca kale guddiga doorashooyinka Puntland ayaa waxa ay taageero ka dalbadeen beesha caalamka gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka maamulka Puntland Guuleed Saalax ayaa waxa uu magaalada Nairobi kulan kula qaatay xubno ka socday beesha caalamka oo ay kamid yihiin safaaradda midowga Yurub Sweden Switzerland Denmark iyo sanduuqa xasilinta Soomaaliya waxay labada dhinac iska wareyseen dadaalada socda ee Puntland ay uga guureyso hanaanka xisbiyada badan iyo qabsoominta doorashada qof iyo cod
beesha caalamku waxa ay bogaadiyeen dadaalada socda iyo horumarka la gaaray oo ay ugu horeyso jiritaanka ururo siyaasadeed kuwaas oo tartan gali doona sanadka dambe. khilaaf xooggan ayaa waxa uu hareeyay doorashooyinka dalka Itoobiya. maamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa ku adkeysanaya inay qabtaan doorashada baarlamaanka ismaamulka Tigreega oo dhacaysa Arbacada soo socota ayagoo iska dhiga tiray go'aanada dowladda federaalka ee joojinaya in la qabto doorashooyinka dalkaasi. ha yeeshee dowladda federaalka Itoobiya iyo inta badan xisbiyada mucaaradka ayaa ogolaaday in dib loo dhigo doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal ee lagu waday inay dhacaan bisha Agoosto ee sanadkan sabab la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. ma jiro ilaa iyo hadda wax war oo ka soo baxay dowladda federaalka Itoobiya, balse afhayeenka xukuumadda Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay u taal baarlamaanka dalka Itoobiya. Tigreega oo ah gobol ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya ayaa dad aad u yar marka loo eego tirada dadka ku nool wadanka Itoobiya oo tiradoodu ay gaarayso 110 milyan, balse waxay maamulayeen dalkaasi tan iyo sanadkii 1991. dalkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah ayaa waxa uu ay u adeegsanayaa baaritaanka cudurka COVID-19. jaamacad ku taala dalka Namibia ee dhaca koonfurta qaaradda Afrika ayaa tababar siinaysa eeyo loo diyaarinayo inay ogaadaan dadka qaba cudurka safmareenka ah ee coronavirus. eeyaha jaamacadda u tababarayso baaritaanka cudurka coronavirus ayaa qorshuhu yahay in la geeyo garoomada diyaaradaha dalkaasi iyo xuduudaha si ay dadka soo galaya dalkaasi ugu baaraan cudurka COVID-19. warbixin la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in eeyuhu 95% ay ku saxan yihiin baaritaanada ay ku sameynayaan dadka qaba coronavirus. waxayna talaabadaasi keentay in eeyo hadda loo tababaro inay cudurkan dadka ka baaraan. dalka Namibia ayaa noqonaya dalkii ugu horeeyay oo Afrikaan ah oo eeyo u tababaraya baaritaanka cudurka coronavirus, lamana shaacin weli xilliga ay si rasmi ah u hawlgali doonaan eeyaha tababarka la siinayo. ugu dambeyn Switzerland ayaa waxa ay furaysaa wado tareen cusub. tunnelka waa qaybta ugu dambaysa ee khadadka tareenka cusub ee lagu hirgeliyay wadamo badan oo reer Yurub ah. dhismaha intii lagu jiray waxaa ku dhintay 2 qof. dhererka tunnelkan ayaa gaaraya 15 kilomitir. hadda waqooyiga iyo koonfurta si sahal ah ayay u midoobeen, waxaana xal loo helay ciriiri badan oo ku jiray isku socodka dhulka, ayay tiri madaxweynaha xiriirka Switzerland. qorshaha tunnelka ku kacay ayaa ku dhow 25 milyan oo dollar oo ay codbixiyaashu ansixiyeen sanadkii 1992. tareenada ugu horeeya ee tareenka ayaa waxa ay bilaabi doonaan inay isticmaalaan bisha December, halka isku xidhka masaafada dheer la soo bandhigi doono bisha Abriil sanadka 2021. guud ahaan daawadayaal intaas baan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii xog waran iyo maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka warbaahinta xog waran, subscribe saar channelka, gambaleelka riix si aysan kuu seegin wararkeena dambe. mahadsanid.